waxaan aaminsanahay in imaaraadku ay wax badan ay wadanka u qaban doonaan sidii horeyba ay ciidamadu u tababari jireen oo mushaaraadka ciidamada ay bixin jireen iyo agabkoodii ay keeni jireen iyo xaruntii caafimaad oo ay ku taalay degmada Cabdicasiis oo xarun caafimaad oo la xiray ahayd in iyadana dib loo furo dawladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa kala saxiixday heshiis ku dhisan xoojinta xiriirka labada dal kadib safarkii ugu horeeyay ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta sida darteed waxaan mikrofoonka la dhaxaadnay dadiyooga ku dhaqan magaalada Muqdisho iyagoo ka aragti dhiibanaya xiriirka labada dal ee dib u soo laabtay kadib 5 sano ee la soo dhaafay oo xilka uu hayay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xumaa xiriirka labada dal. Bismillahir Rahmanir Rahiim magacaygu waa Cali Cilmi Ibrahim oo ku faraxsanahay inaan maanta la kulmo Rais TV hadaan u sii guda gala su'aashaada heeday madaxweynaha Soomaaliya markii ugu horeysay safar ku tagay Imaaraadka asagoo waliba la heshiiyay arinta hadaan u sii guda galo maadaama uu soo laabtay xiriirkii Imaaraadka oo horey muddo 5 sano ku dhawaad wadanka horey ugu go'nay waxay la tahay arintaas in wax badan soo kordhi doonto maadaama Soomaalidu iyo Imaaraadku xiriir ganacsi oo ka dhaxeeyo oo waxa weeyaan Soomaali badan halka ganacsi ku leeyihiin waxay la tahay markii loo fiiriyo Imaaraadka iyo dhankii kale in hadda kuwa noo fiican yihiin waayo waxa isleeyahay wax badan ay soo kordhinayaan oo kamid ah dhaqaalihii inuu kor u kaco oo kamid ah waxa weeyaan ganacsatadii inay waxa weeyaan hawlahoodii hore u sii wadaan waxa isleeyahay markii loo fiiriyo Qatar iyo Imaaraadka markii loo fiiriyo waxa isleeyahay Imaaraadka ayaa noo duwan madaxweynuhu orahdiisii masa astaantii uu adeegsaday oo ahaday Soomaaliya heshiis dunida heshiis la ah waxay la tahay inuu hadda ay bilaabatay oo waxa weeyaan xiriir go'nay 5 sano oo hadda soo celiyay waxa la dhigi karaa madaxweynaha dadaalada uu bixinayo ay kamid tahay iyo halayskiisii oo maanta uu bilaabay talaabtii koobaad uu bilaabay in uu soo celiyay waxa weeyaan aniga aad ayaan u soo dhaweynaya waxay la tahay teeda kale Imaaraadku Soomaalida waxa weeyaan soo jireen fiican ay leeyihiin maadaama ay Soomaalidu markii hore ay heday dadkii waxa ugu jiray maanta ayaga in la caawiyo weeyaan waxa weeyaan la garab qabto marka waxaan leeyahay markii hore dawladii hore ayaa waxa weeyaan oo xiriirkaas aad ka gaabisay laakiin waxa leeyahay madaxweyne xasan sheekh uu ku mahadsan yahay inuu mar labaad soo celiyo xiriirka Imaaraadka waxaan dhihi lahaa dalkii kale hore sii joogeen inuu hore u sii wada xiriirkooda uusan asagana noqonin sidii dawladii hore oo hal garab kaliya ku tiirsaneed oo san noqon ayaa rajaynaya haduu Ilaahay raado Bismillahir Rahmanir Rahiim magacaygu waa Maxamed Ibrahim Ahmed kana mid ah macallimiinta jaamacadaha Muqdisho wax ka dhiga gaar ahaan qaybta siyaasadda ama xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda bartay haddii aan fikirkayga ka dhiibto xiriirka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha la doortay oo uu safarkiisa ugu horeeyay uu ku aaday Imaaraadka Carabta waxaan aaminsanahay in xiriirkii hore Imaaraad ka dhaxeeyay maadaama dawladda isaga ka horeysay uu aad u xumaaday in xiriirkii uu dib u soo celiyo waxaan ogsoonahay in Imaaraadku ay saameyn badan ay ku lahaayeen siyaasadda arrimaha dibadda iyo midda gudaha sida inay ciidamo u tababaraan ciidamada mushaaraadku inay bixiyaan inay sameeyeen xarumo caafimaad oo dadweynaha ama adeega bulshada loogu shaqeeyo oo dadweynuhu ay wax badan ka faa'iideeyeen waxaan aaminsanahay marka xiriirka haddii la wanaajiyo oo sida madaxweynaha 2 maalin ilaa 3 maalmood wada safarkiisa ugu horeeyay oo halkaas uu ku aaday waxaan aaminsanahay in xiriirkaas oo soo laabto in ay bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan siyaasadda dawladda ay wax badan ku soo kordhin doonto iyadoo aan la moogaaganaynin xiriirkii hore ee kala dhaxeeyay dawladda Qatar maadaama uu madaxweynihii hore iyo saraakiisii siyaasaddiisa ay dhinacaas ay u badneed oo xiriirkan kale aad u hooseeyay waxaan rajaynayaa madaxweynaha in Imaaraadku uu soo celiyo xiriirkii dhinaca kale ka jiray oo Qatar iyana inuusan hilmaamin oo labada dhinacba uu ku wado siyaasaddu waxay rabtaa in oo labada dhinacba ay ka wada shaqeeyaan si loo gaaro wax loo yaqaan win-win game ama al-fawz lil-jamiic dadka oo inay wada guuleystaan Imaaraadka inay guuleystaan anagana inuu guuleysano qadarna ay guuleysato waxay ku xiran tahay xiriirka uu la yimaado madaxweynaha oo ah in oo political crisis-kii jiray in uu xal u keeno caqabadkii jirayna uu Imaaraadku dib uga xalliyo si xiriir wanaagsan oo Imaaraadka iyo guud ahaan Carabta Islaamkaba ay ugu noqdo xiriir wanaagsan oo Soomaalidana faa'iido ugu jiro ayaan rajaynaa insha Allah madaxweynaha wuxuu oroliisa waxa kamid ahaa in uu ku galay wax loo yaqaano Soomaali heshiisa oo dunida la heshiisa waxaan rajaynayaa aan aragtida marka aan ka dhiibtana in madaxweynuhu talaabo fiican uu ka bilaabay oo dunida inuu nala heshiisiyo dan wixii markaas oo internalka ama gudaha siyaasadana iyada in xiriir wanaagsan uu ka sameeyo maadaama oroliis uu saas uu ku galay
waxaan u malaynayaa aan ka rajaynaya inuu bilaaway oo ah Soomaali heshiisa oo dunida la heshiisa marka inuu dunida ka bilaabo dan wixii markaas oo dhinacyada oo dawladaha lagu hareeraysanna oo heshiis uu ka keeno si ololihiisii wixii uu ku soo galay Soomaali heshiisa oo dunida la heshiisana wuu bilaaway saas rajaynaya aragtidayda xiriirka uu soo laabtay oo hadda uu bilowgu yahay aan rajaynaya in xiriir xooggan inuu noqdo waxaan aaminsanahay in imaaraadku ay wax badan ay wadanka u qaban doonaan sidii horeyba ay ciidamadu u tababari jireen oo mushaaraadka ciidamada ay bixin jireen iyo agabkoodii ay keeni jireen iyo xaruntii caafimaad oo ku taalay degmada Cabdicasiis oo xarun caafimaad oo la xiray ahayd in iyadana dib loo furo oo mashaariicdii oo humanitarianka in dib loo soo celiyo ayaan rajaynayaa oo imaaraadku ay qayb weyn ay ka qaadan karaan ayaan rajaynayaa waa mahadsantahay magacayga marka hore waa Axmed Doon waan aad baan ugu faraxsanahay maanta ka soo muuqdo TV-gan madaxweynaha haddaan u soo daadego arrinka taagan madaxweynaha safarkiisa kolleyto muddana waa qaatay laakiin waxaan rajaynaynaa inuu safar kheyr qaba noqdo madaxweynaha arrimaha uu shanta qodob ee madaxtooyada ay shaacisay waa 5 qodob oo aad aan uga helay dadka Soomaaliyeedna anfici doona waxa ka mid ah in fiisooyinka dadka Soomaalida loo fududeeyo maadaama ganacsigeenu uu ku xiran yahay badana Imaaraadka Carabta Soomaalidana loo fududeeyo dhaqdhaqaaqa wadankaasi taasna waa soo dhaweynaynaa qodob kale oo waxa ku jira oo ah in Soomaaliya deganaanshaheeda istiqraarkeeda ay iyaguna ka shaqeeyaan iyo in isbitaalka caafimaadka Imaaraadku hore u dhiseen 5 sano ka hor in shaqadiisi uu sii wato oo dadkii Soomaaliyeed si mutadawacnimo oo firiyo ugu shaqeeyo arintaasna waan ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa adduunka horta waa siyaasaddu way isbedbedelaysaa dalkeenuna meesha uu marka dan u arko ayuu aadayaa Soomaaliyana waxaan filayaa in Imaaraadku uu wax badan ka bedeli doono xiriirka labaad ee mar labaad soo cusboonaaday maadaama Imaaraadka taariikh weyn ay Soomaaliya ay la leedahay oo dhan kastaba aad u maasantahay telefishinka ku dhawahay dabcan 5 sano ugu dambeysay waxa ku koobnay 2 dal ku koobneen waa Qatar iyo Eritrea iyo Ethiopia laakiin soo dhaweynaa madaxweynaha talaabada uu qaaday in maaragtay oo xiriir cusub la sameeyo xiriirkii hore u baabay inuu soo celiyo aad u faraxsanahay dabcan wuxuu ka dhabeeyay Soomaali heshiisa dunida heshiis la Imaaraadku wax badan ay noo qabatay 5 sano ugu dambeysay hadaa xasuustaan ciidamo waxa jir Imaaraad ah markuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo imaadane waxa waa biraha loogu dhaftay laakiin aad u faraxsanahay soo dhaweynta oo maaragtay soo dhaweeyay xiriirka cusub ee Imaaraadka aad u soo dhaweynaa insha Allah Raaji Cabdullaahi Salaad Rays Television Muqdisho dalmar waa isbitaalka caafimaadka dadweynaha daaweyntooda aan ka daalin isbitaalka dalmar dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan iyo doktorada ka shaqeeya dhaqaatiirta ma daahdo markasta waa ku diyaar cudurkii laga dayrsho degdeg bay u baxshaan isbitaalka dalmar indhihii daymadooda aragooda daciifo isbitaalka dalmar baa dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan dalmar hospital waxaa kugu diyaara dhakhtarka wadnaha dhakhtarka keliyaha dhakhtarka caruurta dhakhtarka haweenka dhakhtarka indhaha dhakhtarka ilkaha iyo dhakhtarka qalliinka guud isbitaalka dalmar waxaa ka howlgala dhaqaatiir ajaanabi iyo Soomaali ah isbitaal weeye dadweyne oo bukaan oo dhan daweeyo dadkuna ay bogaadsheen marna waa dugsi guudo duruus buu bixiyaayo da'irtu wax baraay doonayo la xiriir dadweynuhu ha mogaanina isbitaalka dalmar dalmar